الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله ولا ليال waxaanu ka hadli doonaa waajibka muslimka fi zaman alfitna. qofka muslimkii maxaa ku waajib waqtiga fitnadu ay jirto? maxaa ku waajiba qofkii muslimka ahaa ee muuminka ah? nabigu calayhi salaatu wasalaam wax kastaba xalkeedii waana siiyey, wax kastana dariiqeygii waa noo caddeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam. laakiin annagaa diidnay, annaga ayaa diidnay oo fitnad kastana ku dhacnay. nas'al allaha tabaaraka wa tacaala an yucaafina. markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaad mooddaa zamankan inuu ummaddiisa la nool yahay, xaalka ummaddiisa inuu og yahay iyaad mooddaa nabigu calayhi salaatu wasalaam. waana xaqiiq weeye. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix buu ku sheegay, wuxuu yidhi satakunu fitan, fitnado badan yaa dhici doon. alqaacidu fiiha khayrun min alqaa'im, ka fadhiya fitnadaas yaa ka shar yar ama ka khayr badan kan u taagan. ka fadhiya fitnadaas buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam iyaa ka khayr badan kan sara jooga ee u taagan fitnadaas. waalqaa'imu khayrun min almaashi, kan u taagan fitnadana wuxuu ka khayr badan yahay kan la socda fitnada, la socda ama ku socda fitnada. waalmaashi fiiha khayrun min asaaci, kan la socda fitnada ama ku socda wuxuu ka khayr badan yahay kan la ordaya fitnada ama ku ordaya iyuu ka khayr badan yahay. markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man tasharafa laha tastashrifhu, qofka u jeesta fitnadaas way u soo jeesata iyadu. qofka fitnadaas daydaya iyaduna way daydayda. qofka fitnadaas doondoona iyaduna way doondoontaa. qofka istusa fitnadaas iyaduna way istustaayo gurigiisa ugu iman. sidaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi. markaasuu xalkii keenay nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxaanu garannaa nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa. sidaa uma hadlo nabigu calayhi salaatu wasalaam, ilaa waxyi buu ku hadla. hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa waxyi. markaa xal buu keenay nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaasuu yidhi faman wajada malja'an aw macaadan falyacud bihi, qofka hela markaasi meeluu kaga badbaadi lahaa fitnadaas ama meel iskaga qarin lahaa hadduu helo, qofkaasi ha iskaga qariyo fitnada meeshaas ama ha iskaga badbaadiyo oo ha ka qarsoonaado fitnadahaas maalintaasi dhici doonta. xadiiskun waa saxiix. hada alxadiis xadiisun saxiix. yukhbiruna annabiyu calayhi salaatu wasalaam can iddaa'i waddawaa. الداء داء الفتن. داء الفتن ما هو الدواء؟ الدواء أن يستعيذ الإنسان بالله من هذه الفتن، وأن يتخذ له معاذا أو ملجأ حتى ينجو من شرها. حلك واكا إنه قفكو اسكقر يفيد نداس سيدو إساقي يرير كيسيو داد كيسو بوغو بدبادي لهاي. مركا في دنادها نو ندقو حلقا كوشيغ عليه الصلاة والسلام. أمدي سكر عدونت. المراد بها التي هي الفتنة التي يختلط فيها الحق والباطل، أو يختلط فيها الحق بالباطل. وفدند لجرنين حق يجي وباطل كيجي، وفدند لجرنين يا حق كجرة يا باطل كجرة، وفدند حق يباطل كي إصلاح قليل أقول لك لساري كريم لما كلا ساري حق يباطل كي يختلط فيها الحق بالباطل، فلا يعلم المحق فيها من المبطل. وحي حقها يوحي باطلها لو ما كلا ساري كريم كيبا حق كجرة كيبا باطل كجرة lama kala saari karay. waa fidnadaha ugu xun, fidnada ummadda maxamed ku dhici doonta calayhi salaatu wasalaam. waana fidnad adduun weeyaan. waa fidnad adduun lagu dagaalamayo, adduun la isku dilayo. waa fidnad ummada shahaadanas oo dhagaroobaysa. waa fidna daakhiliya mu khaarijiya. waa fidnad gudaha ummaddii maxamed dhexdeed, laakiin waa fidnad ka timiday munaafiqiin. waa dad ashhaadanaya oo islaamka isku diraya. waa dad ashhaadanaya oo ummadda ashhaadanaysa isku horgeynaya. dadkaasaa ugu dar حلك النبي عليه الصلاة والسلام والله قاتموا يعني حلك لإنه ننجري هذا بقى ولا ستكون فتن. القاعد ككفر ديا فيها خير من القائم، وعري في الندى ككفر ديا إياك خير بدن كأوتاك ككفر ديا كان شاشدها فرديا ما كان فساد بوجا كصوب حيا أمدي يسقط ريا إدتك يكون أمر ينا دتك لقلو كاسمه كاس وحولدك بتاع وحولدك ما كان لا أرض يا في الندى وكان قدام بي دم بي كقبة dhagarta la qaba dadka ilaan isaga wixii faafinay, isaga ummadii isku diray, isaguna shaashad kadib shaashad iyo ka dambeeyay. isagu hadduu isagu tagi lahaa isdili lahaa oo jahannama tagi lahaa way bafcinaade, laakiin isagu shaashad buu fadhiyaa oo mikoodiisu cabaya. markaasuu ummadii isku diraya, uu iska dhigayaa inuu yahay qaa'id al-umma. marka waa shawaadintii ummadda ku dhex jirtay.
marka nabigu calayhi salaatu wasalaam ina nabiya calayhi salaatu wasalaam ikhwati fillah wuxuuna nahayay nabigu calayhi salaatu wasalaam inaan sabab u noqonno fidnadahan maanta ummaddeeni ku dhacsan fidnadan maanta labada qowmiyadood ee walaalahay ashhaadanayay salaada tukanay dhagartoodii inaan annagu sabab u noqonno ilaahay hanaga magageliyo ilaahay hanaga badbaadiyo waa masiibo naf kastoo dhimata iyo guri kastoo gubta iyo ruux kastoo la cadaabo dembigiisii waa la qabaa qofka fidnada la socda iyo kan fidnada la ordaya iyo kan shaashada fadhiyaba kaasaa ugu dara marka inaanu sabab u noqon ummaddan waan u sheegnay waxaan irahnay muslim hadduu muslim diro abaalmarin kale ma leh waxaanan ahayn cadaabta ilaahay nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam haddaad leedihiin shuhadaa baan nahay caddeeya sidaad shuhadaa ku tihiin culamadiinu ha hadasho culamadiini ha haldaan ha caddeeyaan sidaad shuhadaa ku noqonaysaan inigoo muslim leenaya inigoo muslim ku dhagaroowaya sidaad u noqonaysaan shuhadaa culamadiinu ha caddayso amaa jaahil kasta iyo mukhlis kastaba hadduu shaashadda noo fadhiisto uu ummadda islaamka isku diro uu iraaho shuhadaan nahay shahaadaddaa ma socon doonto shahaadadaas ma socon doonto marka walaalkaygiio inaana lagu galaafan dad baa jirays hoon doona oo jahannama isgeyn doona dadkaa ka mid noqon ilaahu naga badbaadi dheh dhagarta muslimka oo ka fariiso iska qari fidnada ha u bixin fidnada ha u bixin qabyaaladda ha u bixin qoloqolada lianna waxaa tahay nin muslim oo ashhaadanaya qoladaadu waa laa ilaha illa allah qoladaadu waa laa ilaha illa allah dadkaaguna waa muxamadun rasuulullah markaasi dhuruu muslim leeyahay muslimun baale muslimiintu dhur ma kala le way wada leeyihiin waa dad walaalaa iimaankaa isku walaali jacayl ilaahay baa isku keenay tawxiidkaa ismidaysay hadday taa fahmi waayeen ha wataan dagaalkay wadanayaan ha ishooyaan ha la tagaan ilaahay dhagarta laakiin walaalkaygiiyo adu adugu ka fariiso dadku waxaabay wadaan waan la wadi ha urun naftaada badbaadi diintaada badbaadi iimaankaaga badbaadi reerkaaga badbaadi ha la sheekaysan dumarkan fidnadda wada ha la sheekaysan ciyaalkan dadka ku galaafanaya magacii shuhadada ha la sheekaysan naftaada badbaadi ilaahay wuxuu yidhi kullu nafsin bimaa kasabat rahiina naf kastaba waxay iyadu kasbatay iyo mas-uulka tahay adu naftaadii iyo reerkaagii iyo ciyaalkaagan mas-uulka tahay intaa badbaadi ka bax meeshay fidnaddu ka dhacso ka dheerow laakiin ha dhexgeli walow bishatri kelima kilmad ha ku darsan fidnadaasi maanta socota ee ka socota labadan qowmiyadooda ciise iyo cafarka haddii kale dembiga waad la qabtaa masiibadana waad la qabtaa ilaan ummaddii baad ku amartay amaad ku kicisay wax qabyaalad la yidhaahdo oo islaamka ka hor jeeda oo iimaanka ilaahay ka hor jeeda oo diinta ilaahay ka hor jeeda oo alla ka cabsida ka hor jeeda marka walaalahayo iska ilaaliya fidnadda xataa awlaaddiina ciyaalkiina ka ilaaliya nebiga calayhi salaatu wasalaam ha khilaafina dadka nebiga khilaafa ee amarkiisa diida iyo ilaahay masiiba ku dhaadhiciya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka dhawrsadaan dadka amarkii ilaahay rasuulkiisa diidaya ee khilaafaya amarkii rasuulka khilaafaya an tusiibahum fitna inay fidnad ku dhacdo uu ilaahay ku dhaadhiciyo fidnad aynan ka bixin ama cadaab daranay aynan ka badbaadin inuu ilaahay ku dhaadhiciyo ha ka dhawrsadaan buu yidhi ilaahay markaa naftaada badbaadi hala sheekaysan kan ku dabaalanaya fidnadda laakiin adu naftaada badbaadi dadkaaga badbaadi qaraabadaada badbaadi ciyaalkaaga badbaadi oo amarka ilaahay oo amarkii rasuulka ku badbaadi badbaado kale ma leh xal kale ma leh ilaa taacata allah wa taacata rasuul maa lanaa ay xal ilaa assulxu maca allah inaan ilaahay daacaddiisa qabsanno awaamirtii rasuulkiisana aan qaadanno xalku waa ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummaddan waa mideeyey ummaddan uu mideeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kastana waa u caddeeyey maanta ninka ummadda maxamed isku diraya ee kala saarsaaraya ee qabiil u gogoonaya ee dhagartooda iyo dhiigooga ku farxaya waa shaytaanun akhras waa shawaadiintii bani aadamkii la sheegay markaa shawaadiinta ha dhegaysanina ka bax dhagihiina ka daboola fidnadan daakhiliga ayaa ka daran fidnadda khaarijiga marka fidnaduhu waxay nagu dhacayaan markaan annagu dhowr arrimood aan dhexgalno waxaa ka mid ah amarka ilaahay ama amarkii rasuulka oo la khilaafa iyay fidnad nagu dhici sida aayaddan aan sheegnay falyaxzari aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim taa waa kow waddada labaad ee fidnaddu nagu dhacso ama nalagu fidneynayo ama uu ilaahay nagu cadaabayo waa gaalka oo la dhegaysto gaal la dhegaysto oo awaamirta laga qaato gaaladu dhexdooda way is dhegaystaan gaaladu way iskaashadaan awliyaa bacduhum libacd annaguna haddaan iskaashan weyno oon gacan mida noqon weyno aan ummad keliya noqon weyno annagoo rabbi keliyaa caabudan oo kitaab keliyaa haysta oo nebi keliyaa haysta haddaan sidii gaalada aan isku gargaari weyno oon isku damqan weyno oon walaalo lilah noqon weyno waanu baaba'na
إلهي محير سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والذين كفروا دتك قالوا بي قالوا بعضهم أولياء بعض قاركود قارك كليه أولياء ويه قاشام بويه قرقر بويه وما تقرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه إنه قلنا أمدي محمدي هذا سيدا يلي ويدان تكون فتنة في الأرض وفساد كبير بالله وحار دعي دونا مركز فتنة وين أرض قدو شيء إيو فساد وين إلا تفعلوه هداد إنه قلنا سيدا يلي ويدان أود ميدوبي ويدان أود إسكاشن ويدان أود ولالا نقوم ويدان أود إسلام نقوم ويدان تكون فتنة في الأرض وفساد كبير مركا قالوا سيدا أمي دودي وإن الميدونه وإن أنكبحنا قبيالة أمت كليا وإن وطن أمته إن يكون ميدوده مثل بدأ إلهي مركز لا إله إلا الله لا يدود إلهي ميدينس هم مودين إن إلهي وحضرت كان قالوا إنه مودين إنه إلهي وحكا قاري أما وحكو دباتي إلا إله كلمه هليا إلهي أبو ريني كي ديدي إله كلمة سمي سنكرية ما طيب واحد إلهي لقى قاري كرام مجرته وحنا لو بيري كرام مجرته هذا توحيدكم توحيد كان لا إله إلا الله إلهكم ميدينه قصدي دي سوامح فإذا دي سوامح أنا قال فإذا دي وحويان فائدتي الدنيا iyo aakhirada waxay ku dhantahay waa kilmada tawxiidka la iraahe ummadaas ay ku midowso waxaad aragtay dad ilaahay mideynaya oo rumeynaya haddana isdilayad aragtay waxaad aragtay dad ilaahay mideynaya oo rumeynaya haddana 120 meelood u gogo ayad aragtay marka tawxiidku ilaahay oo la mideeya waa xaq laakiin ina dariiqiisana lagu midowada oo dad kaliya la noqda yaa loo baahay hadii kale ma infac nabigu kaleey salaatu wasalaam waxa kaliya tuu sameeyay waa midnimada ummadaas ummadu waxay noqotay ummad kaliya سهيب الرومي إيو بلال الحبشي إيو سلمان الفارسي إيا ولا لا نقضي وانين روب كيميدي إيو ميد فارس كيميدي إيو ميد حبش كيميدي إيا ولا لا نقضي أو إسجعلاري أو إسقدم قضي مركا لا إله إلا الله هدا دركتي دada أشهادني أو حدنا وحي أشهادني مؤمنين تهاي ولالكي أهادي لي waxaad ogaataa shahaadadaasi maqbuul ma hiya shahaada marduuda marka gaaladu siday u midooween annagu waa inaan midoow ummad kaliya waa inaan noqon muuminiintu waa kal jasad alwaahid bi nabiga alayhi salatu wasallam واجر كليا مؤمنين إذا اشتكى منه عضو يعني هدي ملك حنونته جركو دم محمد يبيش وقوى مؤمنين تلشيء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تاهدين لقوايو أنه أمدي محمد وكبح محمد رسول الله محمد رسولك إلهي حقه والذين معه يوحى لجرب الروميين الراعي والصحابة مؤر آيات إلهي محمد وأصحابه مؤر وحيري والذين معه إلى ما ننتقيا محمد رسول الله والذين معه يقوى لجرة محمد صحابتي مورن إنك استي آيات وصحابته شيء لكن آيات وعام وصحابتي يوا النجا يوا أمد الصوص طبعا لو وحي نبي محمد روميوي محوكو شيء إلهي الشداء على الكفار وحي فوق أدقيهين قال هذا رحماء بينهم ده حدودنا ويسكن حريص أنكم ما أنت وحنا نقولني رحماء بالكفار الشداء بعضنا على بعض مركز أنا شهادة لنا والمسلم كم حوك دليل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا عبادة دودي بوشيء أخلاق دودي بوشيء نحريس دودي ده دودي بوشيء قال كسيدي وقو أدقيهم بوشيء أنكم ما أنت نواح قالوا ويا نوحن مسلمين تقولين وهذا لها قال ده جوجا وحا أمدا في الناس والله عادي سلاح درس سيدي أمدا محمد سكوبا أو دم هذا نبي قلنا وحيري عليه الصلاة والسلام بط بيريو سيدر دلا ما أنت قيام وحن جعلها هنا النقضه نكي وقو أمد بدنا هل كون نبي قال لي أنه أمدي بان حسوقنا on ديننا on بين يبلايو ماشي الله فردينا مركا waxaan leeyahay abaarista iska qabto waxa jira dad abaarisa jira oo shawaadiina waxaad ka garanaysaa laxanka hadalkoodii baad ku fahmaysaa inay dadkan shawaadiin dadka ka xidha ka shadiina ka ilaaliya ciyaalkiina kana ilaaliya nafiina inaynan iskageen dadkaas marka waa inaan midowno nabigeeni subhanahu alayhi salatu wasalam waa kan sheegay ka fariista fidnada ummadana ka fariisi haddaad karasaan haddaad qari weydaan u duceeyo ka baxay sheekadooda ka bax kuwan waxay doonayaan ummadda maxamedina halaagaan gaalkii baabana halaagay imsa wadano islaanu naga burburiyay gaalku haddii aan annagu damiir leenahay taas inaan u oynayd maanta imsa wadana oo islaama iyana laga burburiyay oo nalaga fidneeyay maray dowladii iyo isku diraan shicibka maray madaxweynihii iyo shicibka isku fidneeyaan maray dhaxdeeni qabaa'il iyo qolo isku keendiraan maray munaafiqiin noo adeegsadaan si alla siday sameeyaanba 17 wadano islaani naga burburiyay inta anaguma fidno haddaan annagu muslimiin nahay marka ilaahay gaaladuu ku sheegay inay yihiin dad iskaashanaya annaguna haddaan iskaashan weyno waanu baaba'naa والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه شرطية هدات سيدا سمين ويدان أمدي محمدي تكون فتنة في الأرض وكذا مركزي
xalku waxaa weeye walaalahagiyo inaan annagu ka joogsanno fidnada dhagaheynaan ka daboolno indhaheynaan ka xidhno xalku waa ka haddii nala maqlayo annaga wax sheegan culamaduna ilaahay ha ka baqato wax ha sheegto ummadda waa inaan la dhexdhexaadiyo innama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum biilaahi mu'miniintu cadow isku maaha ha kala xumaadaan ha isdilaan cadow isku maaha ha kala caroodaan waxay isku diidaan lakin cadow isku maaha cadowgu annagu waa cadowgeenu waa gaalka isku kendiraya weyan cadowgu waa federaalkan waa dowladda abi axmed cadowga ummaddaa waxa isku diraya waa taas waa inaan midowno fitnaddana ilaahay waa inaan ka barino sharkeega inuu naga qabto ilaahay qur'aanku ku sheegay mu'miniinta adciyadooda waxaa ka mid ah rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan liladiina kafaruu waqfir lana rabbanaa innaka anta alcaziizu alxakiim mu'minku xataa wuxuu ku ducaystaa inuu ilahay ka badbaadiyo fitnata rabbanaa rabbigeynow laa tajcalnaa fitna hanaga yeelin dadkay gaaladu fitnaynayso liladiina kafaruu waqfir lana noo dambi dhaafna waa duco ilaahay adciyadan wuxuu qur-aanka ugu sheegay siduu muuminku ugu dhaqmo uu ducaysto maanta halkan ka ducaysan lahayn oon oran lahayn ilaahu fitnada naga qabo ilaahu ummaddan isku wanaaji oon dadkii u ducayn lahayn inaan ummaddii isku dirana